Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boorle maanta waxaynu ka hadli doonaa taariikhda feedhiyahankii muslimka ahaa ee Maxamed Cali Kalaay waa feedhiyahan caan ah oo u dhashay dalka Mareykanka Maxamed Cali ayaa taariikhdu markaa ahayd 17 January 1942 ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo ku yaal koonfurta Mareykanka Kalaay oo ka dhashay qoys haysta diinta Masiixiga ayaa waxa ay waalidkiisu ugu wanqaleen magaca Cassius Marcellus Kalaay waxa uu ku guuleystay tartanka feerka miisaanka culus tiro 3 jeer ah sidoo kale waxa uu muddadaas 20 sano ah ee uu ku dhex jiray ciyaaraha feerka ku guuleystay inuu noqdo horyaalka adduunka sanadadii 1964 1974 iyo 1978 sanadkii 1999 ayaa Kalaay loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee caalamka soo mara qarnigii 20aad qaabka feerka Maxamed Cali Kalaay waxa uu caan ku ahaa goysmada ama gasta faraha badan taasoo dib u keeni jirtay feedhiyahanada isaga la tartama waxa kale oo Kalaay ku caan baxay intii uu feerka ku dhex jiray feerka degdega ah 1964 ayaa ahayd markii ugu horeysay ee uu Kalaay si la yaab leh uga guuleystay feedhiyahankii ahaa horyaalka miisaanka culus ee lagu magacaabi jiray Sonny Liston waxaanu Kalaay isla mar ahaantaas la wareegay suunka cadaynta u ah inuu noqday horyaalka adduunka ee feerka miisaanka culus Kalaay oo markaa da'diisu ahayd 22 sano ayaa noqday feedhiyahankii ugu da'da yaraa ee ku guuleysta suunka feerka miisaanka culus ee taariikhda adduunka soo mara muddo yar kadib markii Kalaay uu noqday horyaal ayaa waxa uu si lama filaan ah warbaahinta caalamka uga sheegay inuu qaatay diinta Islaamka sanadkii 1965 markii uu Kalaay si rasmi ah ugu biiray diinta Islaamka ayaa waxa uu magaciisa hore ku bedelay magaca Islaamka ah ee Maxamed Cali Kalaay waxa uu qaatay diinta Islaamka isagoo aan lahayn waxdan khaas ah ama qarsoon waxaana xitaa dhici kartay in uu Kalaay tallaabadaas ku waayo taageerayaashiisa aadka u tirada badan laakiin waxa dhacday taasi bedelkeeda oo ah in taageerayaasha iyo shacbiyada uu Kalaay ku lahaa gudaha dalka Mareykanka iyo caalamka intiisa kaleba ay aad u sii kordheen sanadkii 1966 ayaa Maxamed Cali Kalaay laga qaaday imtixaan ku saabsan caafimaadkiisa waxaana la sheegay inuu ka qayb gali karo dagaal ay dawladda Mareykanka qayb ka ahayd oo xilliga ka socday dalka Vietnam taasina waxa ay la macno ahayd in haddii uu Kalaay dagaalka ka qayb qaadanayo uu guud ahaan ka tago feerka iyo waxbarashadiisa kaleba laakiin Kalaay oo lagu yaqaanay dhiiranaan badan ayaa qaadacay arrinkaas oo waa uu diiday inuu dagaal la galo sida uu hadalka u dhigayna dad masaakiin ah oo u dhashay dal ka tirsan dunida soo koraya dagaal lama galaya ayaa uu yiri Kalaay waxa uu sidoo kale si cad u sheegay inuu gabi ahaanba ka soo horjeedo dagaalka Mareykanka ay ku qaadeen Vietnam oo masaafo ahaan aad uga fog dalka Mareykanka waxaanu sheegay in dagaalkaasi uu yahay mid gardarro ku ah shacabka reer Vietnam sanadkii 1967 oo ahaa markii Kalaay uu gaadhay guulihii ugu badnaa ayaa ay dawladda Mareykanku ka xayoobisay suunkii horyaalka feerka miisaanka culus ee adduunka sababtoo ah waxa Kalaay lagu eedeeyay in aanu ahayn wadani maadaama uu diiday ka qayb qaadashada dagaalka ka socda dalka Vietnam muddo dhan 3 sano Kalaay kama aanu qayb gelin wax tartan feer ah laakiin waxa uu feerka mar kale dib ugu soo noqday sanadkii 1970 Maxamed Cali Kalaay oo ahaa haliyey ku weyn qalbiyada shacabka adduunka ayaa safka uu hore kaga jira feedhiyahanada waaweyn ee taariikhdu mar walba ay xusto warbaahinta dunida ayaa aad u hadal haysa falanqaynta marar badan geesinimada iyo taariikhda uu ka tagay Maxamed Cali Kalaay waxa uu ahaa nin inta badan u dooda xuquuqda aadamaha inta badanna waxa uu ku doodi jiray midabkiisa madow oo ay dad badan oo Mareykan ahi ku takoori jireen taariikhdu markay ahayd 3 Juun 2016 ayaa isagoo 47 jir ah
waxa uu ku geeriyooday dalka Mareykanka halkaasi oo maalmo ka hor cisbitaal loo dhigay xaalad caafimaad. intaas ayaynu ku soo koobi doonaa taariikhda feedhiyahankii Maxamed Cali Kalay.